run ahaantii insaanku waa cajiib. waxaad arkaysaa qof ku dadaalaya salaadaha waajibaadka, cibaado sida wanaagsan u gudanaya, sadaqa baxsanaya, weliba asigoo xitaa jannada taakayar ugu dhiman tahay. haddana mar qore uu isbedelayo, haddana wuxuu qaadaya waddadii naarta uu ku gal lahaa. subxaan allah, diinteena islaamka waxay sheegtay in haddii uu qofka ballan ka qaado alla subxaana wa tacaala sida inuu iska ilaaliyo kale macaasida, salaadaha si wanaagsan u tukado, afkiisa iyo dhegihiisana uu ka dhowro wax kastoo alla subxaana wa tacaala uu ka xaaraantilmeeyey. waxaa waajib ah in uu ku dadaalo ballankaas oofinteeda. alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan. wa awfuu bilcahdi ballanka oofiya, ina alcahda kaana mas-uulan. ballankaasi waa mid isweydiin doono maalinta qiyaame. haddii aad ballanka jebiso si kasna aad u samayso oo aad ku ciyaarto ballankaasi, waa dembi aad u culus. haddii shaydaan ugu qaldo oo aad naftada u galato, ogow weli albaabka toobado ay kuu furan tahay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullu ibni aadam qadaa wa khayru lqadaa'uuna tawaabuun. dhammaan ibni aadam ay qaldamayaan, gaf waa ka dhacayaan, laakiin wax u khayr badan waxay tahay midka gafkiisa ka toobadkeena oo ka soo laabta oo ilaahay subxaana wa tacaala u soo laabta oo gafkiisa qiranaya, kaas ay u khayr badan. ogow ina alxasanaati yudhibna asayi'aat. camalka wanaagsanna wuxuu titiraa kan xun. markastana waxaad caado ka dhigtaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala barido oo ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf ka dalbato. waxaa dhahdaa rabbi ighfir lii wa tub calaya innaka anta atawaabu araxiim. ilaahayow ii dembi dhaaf oo toobada iga aqbal, adigu waxaad tahay midka toobad aqbala oo naxariis badan. ugu dambayn, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku boorinaya ummaddiisa in haddii qofka markasta uu dembi galo, haddii markastana alla subxaana wa tacaala u toobad keeno oo dembi dhaaf uu ka dalbado inuu cafin doono. asalaamu calaykum.